xafladan oo ka dhacday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa loo sameeyay arday dhamaysatay xirfadda tababarka dawaarka waxaa ardaydani waxbaray ururka Abu Hurayra Charity Organization munaasibadan waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliland mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday Abu Hurayra Charity Organization ardayda loo sameeyay xafladani marti sharaf iyo xubno kala duwan oo lagu soo casuumay waxaa halkaas ka hadlay xubno kamid ah maamulka Abu Hurayra Charity Organization iyo macallimiinta ardaydani waxbaray qaar kamid ah ardayda bartay xirfadda dawaarka ayaa dhinacooda halkaasi dhammaantood ka hadlay waxa aanay ka sheekeeyeen baahida loo qabo in bulshada la baro xirfadda dawaarka iyo sida ay bulshadu ugu shaqaysan karto dhammaantiin waan idin wada mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa maxaan ku reer Abu Hurayra soo dhanyihiin shaqaalahayga waayo farq u fool ma dhaqda bay tiraa Soomaali kaligay wax maan qabanin fikirka waan keenay laakiin team dhan baa ila shaqeeya oo gacanta ay qabtay marka teamka oo rag iyo dumar ah oo ugu horeyso macallin tireen ilaahay miisaanka xasanaadkiisa macallimadayda Farduus ee hablaha ka soo dhex baxdayna aad iyo aad baan iyadana u hambalyeynaya macallimadayda qabtay dhammaantiin waxa kale qaadhan bixiyaasha Abu Hurayra ee guud iyo dibadba jooga waan u mahadnaqayaa dadweynaha kamida qaadhan bixiyaasha oo dibadda nooga yimid oo halka fadhiyana way kamid yihiin dadka tabaruca bixiya marka iyagana waan u mahadnaqayaa rag iyo dumar meel kasta kala joogaan waan u wada mahadnaqayaa waxa iyagana aan u mahadnaqayaa sagal chat oo mar walba aanu leenahay aanu waraaqo wax u geysano aanu ka daabacno oo dhiskan weyn oo wanaagsan loo sameeyo dafcada waxaan ka soo saarnay inantii wanka gashay macallimad bay noqotay iyana dafcadan labaad ee Abu Hurayra ka qalin jabisay maanta ayay tababartay Farduus Usmaan anna waxaan tababaray 10 hablood oo kale oo State House-ka oo iyaguna caaw qalin jabinaya saddexda dafcadood ayaa noo hirgalay inta sanadka ilaahay mahad u sugnaatay hawsha dhamaanteedna waxa isku dubariday oo qabatay oo guntiga u xiratay ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaray ayaan Usmaan waxa ka baxaya dafcadii labaad tiraahana waxay noqonaysaa 30 hablood inta ka qalin jabisay barashada dawaarka markii ugu horeysay waxaanu tagnay AD Camp-ka ee ku yaala Digaale waxaanu aragnay baahida ugu weyn ee qabaan inay ahayd dawaarka markay u baahdaan inay wax tushaan waxay iman jireen magaalada oo u jirta masaafo waxa ka bixi jiray waqti waxa ka bixi jirtay kharash laakiin markii aanu dafcadii koowaad ku tababarnay dawaarka imika halkooga ay ku tushaan iyaga ayaana xirfadoodii ku shaqeysta habliyaan tababarnay alxamdulillah rabbil caalamiin waxay hirgashay inaan maanta toosho aan iskafeeyo kadibna aan maanta haddana macallimad noqdo 10 ka arday maanta deena macallimadoodii waa aniga soo keenay ma haddana ilaahay baa iskale tuburrici iyo taakuladiina Abu Hurayra wax weyn ayaa waxaan leeyahay iyo tiimkeedaba laba ujeedo ee wasaaradda waxbarashada qaranka mas'uulka ahayd baad nagala shaqeyseen aad iyo aad baan manaha wax kasta in dawladda lagu eego ama dawlad laga sugo ma aha in qof laga eego qof kasta oo nooli waxbuu tari karaya nolosha meel buu kaga beegay haddii inta la isu wada geeyo dadku ay isu wada geeyaan waxa la soo baxaya marka dambe mujtamac qurux badan magaalooyin qurux badan iyo nolol wanaagsan dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdixakiin Saciid Bustaale gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Cabdikariin Axmed Maxamed Xinife mulkiilaha guud ee Hotel Guuleed ayaa dhinacooda halkaasi ka hadlay waxa aanay si wada jir ah ay iskaga daba mareen sida xirfaddan dawaarku u tahay mid loo baahan yahay ka wasaaradahan anaguna awoodda saarnay runtii oo sanadka qorshaha ugu weyn aan ku jirno waxa weeyaan kor u qaadno xirfadlayaasha dalka oo dhan anagoo ku saleyn doono baahida rasmiga ee suuqeena u baahan yahay xirfadda dalka looga baahan yahay inaan barno qof kasta oo muwaadin ah oo ay kamid yihiin dawaarada kamid ah mechanical engineering-ka kamid ah waxa kaloo kamid ah decoration-ada guryaha darkaysan imika shaqadaas ay gacanta ugu jirto dadka ajnabiga ah oo muwaadiniin badan xaq u leeyihiin inay ku shaqeeyaan waxa si ka horeysa in wax la baro taasi oo ka duulayno sanadka qorshaha programka tifadka loo yaqaano ee wasaaradda inaanu awoodda saarno qof kasta oo muwaadinana way u furan tahay waxaan kaloo halkan ka ballan qaadayaa wasiiraan
inaanu si dhow ula shaqayn doono organisationkan caawa xafladdiisa aanu joogno annagoo ka qayb qaadan doona waxbarashada ay wadaan hay-aduhu had iyo jeer markay tababaro noocana bixiyaan waxaanu ku khasabnaa dadka ay tababareen waxay ku tababareen agabkii ay ku shaqaysan lahayn inay siiyaan iyagu Abu Hurayra waa qolada keliya ee iyagu iskood u gartay inay dadka wixii siiyaan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland ahna afayeenka xukuumadda Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo halkaasi ka hadlay ayaa dhinaciisa soo dhaweeyay ardaydan bartay xirfadda dawaarka waxaanu intaasi ku daray in ay xirfadani nafahooda anfici doonto waxaa inoo ku filan tusaale sida gabadha la tababaray ee dawaarka la siiyey siday nolosheedii u bedeshay isperson 5,000 oo qoys in dhaqdhaqaaq loo sameeyaana wax yar ma familiga Somaliland waxa lagu qiyaasaa familiga ugu yari waa 7 qof ama waa 8 qof nimanka hantida leh ee ganacsatada ee dadka ka ganacsata ee hantida badan ka helayna waxa loo baahan yahay dadka ugu habboon ee lacagtaasi wadadii Ilaahay yiri Mariya ay noqonaysaa inay tahay dadka deegaanada aynu aragna ku nool ee $1,000 wax weyn ka bedeliso marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaynu isku ogaanaynaa inaynu u degdegno oo wixii aynu tari karno tarno dadkeena jilicsan ugu dambeyntii mas'uuliyiintan kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabaddan ayaa halkaasi abaalmarin ku guddoonsiiyay ardayda dhamaystay xirfadda dawaarka iyaga oo halkaasi lagu guddoonsiiyay abaalmarin kala duwan oo ay ugu tala galeen Abu Hurayra Charity Organization